lamaane da'yar ah oo ka soo jeeda gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaaradii qumaatiga u kacaysay ee ka soo qaybgalaysay arooskooda sida ay saraakiishu sheegeen. caruuska iyo caruusada oo lagu kala magacaabi jiray Will Biller iyo Bailey Ankerman Biller ayaa waxay ahaayeen arday dhiganaya jaamacadda Sam Houston State University. geeridooda ayaa waxaa markii u horeysay tabiyay wargeys ay ardaydu leeyihiin. shilka diyaaraddu waxa uu ka dhacay meel u dhow Falayd oo qiyaastii 135 kiiloomitir u jirta galbeedka San Antonio. dadkii arooska ka qaybgalayay ayaa baraha bulshada soo dhigay sawirradii arooska ay ku galeen oo ay soo raaciyeen tacsi. aad baanu uga xunnahay ayuu qof saaxiib la ahaa ku soo qoray bartiisa Facebooka, waxaana uu intaasi ku daray in sidoo kale uu dhintay duuliyihii diyaaraddu. madaxa ardayda oo war qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay in lamaanaha is aroosay ay weligood lagu xasuusan doono qalbisamidoodii iyo weliba dhiirigelintoodii. lamaanahan ayaa is aroosay saacad uun kadib markii shilka ay ku galeen gobolkaasi Texas ee waddanka Mareykanka. lamaanahan labadooduba waxa ay baranayeen culumta agricultural and environmental science ee xagga wax soo saarka beeraha, waxaana ay ku jireen sanadkii ugu dambeeyay jaamacadda. سعيد أحمد تمريسة ورركة تلفزيون كعالمي جاه ستار.